badan waxay isweydiinayaan in Alibaba laga dalbado alaab ma easy ba ma wax fudud ba haa waa wax easy ah ma ogtahay in Alibaba in alaab laga dalbadaa ay aad u fududahay u fikir in Alibaba aad alaab ka dalbato inay tahay wax fudud oo easy ah dad badan ayaa waxay isweydiinayaan qaabkan Alibaba ah alaab uga dalban lahaa waa sidee laakiinse hal khalad ama laba khalad oo aad samayso ayaa waxay kugu ridi kartaa hog dheer oo aanad ka soo kabanayn inaad kumanaan kun oo dollar aad ku weydo ganacsigaaga adigoo bilowa haddaba maanta waxaan kula wadaagayaa qaabkii aanad ugu dhacdeen godkaas dheer aanad ugu dhacdeen ayaan kula wadaagayaa sababta godka ugu dhacaysa waxa weeye laga yaabaa supplier ama qof warshad iska dhigaya inuu ku khiyaamo adigoo ku cusub ganacsiga iyo howlahan waxaan arkay dad badan oo la jahwareersan qaabkay Alibaba wax uga dalban lahaayeen weliba ganacsatada yaryar ee waddankii joogta ku soo dhawow channelka Priority Group oo idinka imanaya waddanka China channelkan waxaan kusoo gudbiyaa waxyaabaha ganacsiga China sida warshadaha China wax looga dalbado qaabka saxda ah ee aad maxayta China wax uga soo dhoofin lahayd alaabaha aad soo iibsan lahayd iyo dhammaan wixii ganacsiga la xiriira ka soo qaad adigoo cusub oo isle $500 ama $1,000 ganacsi ku bilow oon Alibabana wax aqoona aan ka haysan ama aan garanayn qaabkii wax looga dalban lahaa haddaba maanta waxaan kula wadaagayaa qaabkaanad hogga ugu dhacdeen dheer ee lagu khiyaameen ee aan maxay ahatay lacagtaada aanad ku khasaarteen qaabkii aad u mari lahayd alaabaha haddii alla idamkeeda leeyahay aad ka soo dhoofin lahayd China alaabaha loogu baahida badan yahay ee maxay ahatay bulshadiina wax ku soo celinaya bulshadiina iibsanayso adigana aad faa'iido ka heli karto baan kula wadaagayaa intaan qof kalaba fursaddan ka faa'iidaysan haddii aad ku cusubtay channelkan Priority Group fadlan like share and subscribe channelkan waxaan kaga hadlaa ganacsiga China qaabka Alibaba wax looga dalbado e-commerce oo ah ganacsiga ku dhaca qaab online ah sidii lacag aa uga samayn lahayd online haddii baa lidamkeeda leeyahay sidoo kale Amazon FBA dropshipping koorsyo badan ayaan soo wadaa runtii haddii aad ku cusubtay channelkan fadlan like share subscribe si uu meel fog u gaadho adiguna aad uga faa'iidid dadka ku xidhan channelkanna ay uga faa'idi lahaayeen haddii aan la soo noqdo tobigeena macmiil ayaa la dhaho oo muqdisho joogta waxay ka dalbatay alaab ayay ka dalbatay Alibaba especially alaabta loo yaqaano electronics amaba mobile accessory kadibna waxay ku qanacday in supplierkii uu ku yidhi alaab quality leh oo aad iyo aad qualityga u sarreeyo baan kaa gadayaa alaabtii sawiradii uu soo dirtay sawiradii ayuu soo diray qurux badan yihiin runtii alaabtii markii gabadhii gaadhay oo muqdisho joogta waxay aragtay gabadhii in alaabtii qaar ka mid ay jajaban yihiin qaar ka mid aanay shaqaynayn orderkeedii oo wax weyn ka qaldan yahay bay aragtay xagga waxay ku weyday $3,000 ayay ku weyday oo ka khasaaray laakiin waxaan ku hayaa good news amaba war aad iyo aad u fiican ood ku farxi doontid warkaasina waxa weeyaan Alibaba caadi ahaan marka runta laga hadlo wuxuu noqon karaa cheapest option ama optionka ugu jaban ee aad alaab ka dalban karto ayuu noqon karaa sidoo kalena aad ka dalban karto sidoo kalena aad kala xiriiri karto supplier lagu kalsoon yahay marka maanta waxaan idinla wadaagayaa step by step amaba tallaabo ka tallaabo qaabkii aad uga dalban lahayd si safely oo aad ku kalsoon tahay kalsoonidaada adigoo aqalkaaga iska fadhiya aad uga dalban lahayd alaab baan kula wadaagayaa fadlan ila soco aniga waxaan isku dayay mar horey in aan isbarbar dhigo 2 supplier amaba 3 supplier wax ka badan adigu anytime aan waan isbarbar dhigaa waxaad isticmaashaa wax loo yaqaano verified supplier Alibaba haddaan ka hadalno verified supplier ayaad isticmaalaysaa verified supplier waa maxay waxa weeyaan in haddii baa lidamkeeda leeyahay
supplierkan ama warshadan wax kaa gadaysa in shahaadadeyda warehouseka waxa la dhaho standards oo loo eego warshadaha hadday noqoto qaybta paymentka hadday noqoto qaybta shaqaalaha hadday noqoto qaybta warehouseka iyo safetygiisa adigu waa topic dhan mar kalan kasoo hadli doonaa haddii aan laydhaa in verified micnaha calibaaba ayaa wax walba ka saxay in ay tahay waxani wax sugan ama warshad sugan calaamadda verified waan kuu soo gelin doonaa xaggan baad isticmaali doontaa markaad iska jeekaraynayso supplierkan waxay igu dhacday in aan isbarbardhigay laba supplier ka verifierka ama wixiisa la hubiyey marka waxa weeye alaabaan ka dalbaday ay defect noqotay amaba ay jajabtay amaba ay waxyeelo yeelatay markii aan ku noqday aan idhi waxaana jira qaladkan ayaa dhacay wuxuu sameeyey refund ama lacagtii qayb ii soo celiyey waana ta ku tusaysa in uu trustable yahay ama aad ku kalsoonaan karto supplierkan sababtoo ah wixiisu waa wax sugan kii kale uu baxsaday meel alle meel uu ka baxay lama hayo had iyo jeer waxaad isku daydaa inaad sambal aad ka dalbato calibaba sambaliska way sameeyaan laakiinse waxay ku jaajgaraynayaan itemka lacagta la siiyo wax ka yar badan waana is okay waa wax caadi oo wax jira sababtoo ah sambalkan wuxuu ka hortegayaa in hadhow aad maxay ahatoy lagugu dhici lahaa ama wax ka badan aad khasaari lahayd waxaa kula wadaagayaa sheeko yar gabadh joogta london baa waxay soo dalbatay xijaab bay soo dalbatay order weyn ah markii hore markaa waxay islahayd orderka weyn hal mar maxay ahatoy order garayso laakiinse way ka fikirtay markaan la talinay sambalkii bay qaadatay waxay tiri sambal ayaan ka dalbanayaa $50 oo sambala baa laga qaaday uu gaadhay qaabkii iyo wixii ay kula heshiisay warshadda way ku qanacday sambalkii taasi waxay ku tusaysaa waxay u saybgaraysay $10,000 in ay hal mar soo shubi lahayd oo ay odhan lahayd xijaabo ayaan rabaa marka taasina waa tallaabo fiican iyo tusaale fiican in aad marka hore aana degdegin ood sambal aad dalbato had iyo jeer waxa dhacda in dadkeenu ay jecel yihiin waxa aadka iyo aad u jaban ma xuma inaad wax jaban aad iibsato ama aad gadato laakiinse jayne wax ka caana baan kuu sheegayaa runtii oo kuu seefgarayn doona lacag aad iyo aad u badan iyo time aad iyo aad u badan oo dadka badankooda youtuberada xaggan ganacsiga waxaan ka hadlaa aanay ku dhawaaqin oo aanay sheegin waa maxay taasi waxa weeyaan had iyo jeer waxaad samaysaa negotiation waa maxay inaad samayso gorgortan aad iskala gorgortanto warshaddii xagga qiimaha laakiinse mid baan kuu sheegayaa ha ku dhicin god dheer gorgortanka aadka u dheer amaba aadka u jaban ee aad iska cadaadiso warshadda chiniiska waad ka qoomamayn doontaa maxaad kaga qoomamaynaysaa china lagama yaqaano gorgortan aad u sarreeya ama aad u weyn waxaa laga yaabaa laba warshadood oo aanay waxba u dhexayn 10 tallaabo u dhexeeyaan inay maxay ahato kala jaban yihiin $0.10 ama $0.20 ama $0.3 wax 0.5 aanan gaadhayn market dhan ayaad soconaysaa marketkaa dhan waxba isma dhaamo qiimaha sanaati bay isleeyihiin maanta aduunbaad daalaya haddaad socotid marka waxaan kugula talinayaa aad ha u cadaadin haddaad aad u cadaadinaysid warshadda maxaad la kulmaysaa waxaad la kulmi doontaa dabcan in lagaa gado amaba lagaa iibiyo shay fayga amaba shay qualitygiisu ama tayadiisu ay tahay poor quality lacagta waxaad ku bixisaa waxa loo yaqaano secure payment waa maxay waa sida calibaaba dhexdiisa waxaa jira waxa loo yaqaano secure payment oo aan lagu dhacayn sida mastercard calipay waxyaabahaasoo dhan waa inaad ku bixiso haddii lagu wado whatsapp laga kugu soo dirayna iska ilaali waa khiyaano weeyaan lacagtana dib marki doontid iyo alaabtaba u baahan tahay nala wadaag subscribe channelka dhe
oo sii sheergaree si uu meel fog u gaadho aad baad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan haddii aad xaggan ila soo gaadhay aad baad u mahadsan tahay siina sheergaree channelka muuqaalka kan xiga waxaan idinla wadaagi doonaa waxyaabo kale oo xiise leh aad baad u mahadsantihiin